بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كلا بعض current electricity. عشر كم وحين قادرنا voltage. قضبضا يندل مرنا وحكم إذا voltage measuring voltage calculation is exercise. Okay, أنا كورينو voltage. ومحي voltage. maxaa lagu qeexaa voltage? Voltage simply waxa lagu qeexaa voltage is the energy per unit charge. Voltage-ku waa energy-ga uu qaadi karo hal charge ama energy-ga la siiyo hal charge. Voltage waxa lagu helaa energy-ga oo loo qaybiyay charge-ka. Si kale haddaan u dhigno waa work divided by charge, waa shaqada oo loo qaybiyay charge-ka. Waxaynu soo dhiganay charge-ka haddii la dhaqaajiyo oo ay dhaqaajiso electric field ku shaqaaya qabanaysaa. Shaqada marka loo qaybiyo charge-ka laftirkiisa magnitude-kiisa ama size-kiisa waxa soo baxa waa potential difference. Potential difference marka waa voltage. Marka voltage waxa lagu helayaa energy divided by charge ama work divided by charge. That means energy iyo work waa isku mid. Hadba shaqada aad qabataa waxay u dhigantaa xaddiga energy-ga ee aad isticmaasho. Unit kiisa waa joule per coulomb ama volt. 1 volt waxay leegtahay 1 joule per coulomb. Okay, voltage laba qaybood baynu u qaybin karnaa. Electromotive force EMF baa loo soo gaabsadaa. Marna waxaa la yidhaahdaa potential difference oo PD loo soo gaabiyo. Balada circuit-kan fiirso. Circuit-kan wuxuu ka kooban yahay battery iyo wire-radii ku xidhnaa iyo lamp. Halka waxa kaaga muuqda sawir qof bini'aadmiya waag. Waxa lagu metelayaa moving charge, waa charge-kii soconaya. Marka charge-kaasi markuu halkan marayo waa bila energy. Battery-gu soo gelayaa. Battery-ga ayuu charge-ku energy-ga ka soo qaadanayaa. Marka uu ka soo baxo waa full energetic ama energy badan buu sidaa. Marka uu yimaado circuit componentska gaar ahaan applianceska waxa lagala harayaa energy-gii isagoo bila energy hadna ku soo noqonaya battery-gii. Sidaa daraadeed waxa la yiraahdaa charge-ku marna battery-gu energy-ga ka soo qaadaya marna circuit componentska ayuu energy-ga siinaya. Marka hadaba battery-ga uu energy-ga ka soo qaadayo energy-ga la siinayo charge-ka waxa la yiraahdaa electromotive force. Marka uu dibadda u soo baxo ee uu circuit componentska u qaybinayo charge-kiina waxa la yiraahdaa potential difference. Marka electromotive force waa energy per unit charge, waa energy-ga halkan charge uu qaadi karo ama uu ka soo qaadayo within the battery ee battery-ga dhexdeeda marka isaga la soo siinayo charge-kii weey. Potential difference-kuna waa energy per unit charge, waa energy-ga halkii charge ba uu sido ee uu gudbinayo to the circuit components qaybaha circuit-ka. Marka labaduba waa isku mid waxbay wadaagaan. Labaduba haddaad fiirsato waa energy per unit charge iyo energy per unit charge. Labaduba waa energy-ga uu charge ku sido. Marna waa within the battery, marna waa to the circuit component. Intaan bay ku kala duwan yihiin. Si kale haddaan u dhigno potential difference-ku battery-gu charge-ku marka uu ka soo baxo ugu horeysa aad buu energy badan u sidaa. Marka ugu dambeysuu soo galayna energy-giisu aad buu yari. Marka hadda dhinaca battery-ga xaggan ay tahay xagga balaaska. Xagga balaaska aad buu uga energy badan yahay. Xagga minuska xagga damana waa minuska battery-ga energy-giisu uu yari. Marka farqiga u dhaxeeya dhinaca energy-ga badan leh iyo dhinaca energy-ga yar leh labada energy farqiga u dhaxeeyana waxa way noqonaysaa potential difference. Potential difference oo battery-gu haddaan plus iyo minus lahayn potential difference buu leeyahay lama yiraahdeen. Measuring voltage, cabirada voltage-ka. Voltage is measured by a voltmeter. Voltage-ka waxa lagu cabiraa voltmeter. Isku dar voltage-kii haddaad tiraahdo potential difference waa voltage, haddaad tiraahdo electromotive force waa voltage, labada voltage bay isku yihiin. Voltage-na waa energy per unit charge seen hore u tilmaanay. Cabirada voltage-ka hadaba voltage waxa lagu cabiraa voltmeter. Voltmeter-ku waa saacada muuqaalkaasi leh sidii ammeter-ka oo kale iyaduna waxay leedahay plus iyo minus ama red terminal iyo black terminal.
scale na way leedahay, pointer na way leedahay, calaamadana way leedahay ama symbolka voltmeterku waa v da goobadeed la dhexgeliyay horena waynu soo aragnaan filaya. Voltmeter is connected parallel with the circuit components. Voltmeterka waxaa loola xidhaa si parallel ah qaybaha circuitka. Circuit components waa qaybaha circuitka, hadba qaybtii la cabirayo ayaa parallel lagala dhigaya. Voltmeters have high resistance. Voltmeters waxay leeyihiin caabi aad u sareeya ama dab joojin fara badan, so they are not connected in the circuit. Saa daraadeed laguma dhex xidho circuitka. Waa sababta loogu xidhayo parallel, waxay leeyihiin high resistance. Marka matalan hadda waxaan hayaa bal matalan circuitkan ka kooban bayteriga iyo resistorka iyo wiradii. Haddii aan rabo inaan resistorka cabiro current-ka dhex maraya, waa inaan ku xidhaa ammeter. Marka ammeterka iyada series baan ula xidhaya sababta low resistance bay leedahay. Laakiin markaan rabno inaan cabirno voltage-keeda, voltmeter baynu ku xidhaynaa. Voltmeterka seen ugu xidhnaa markaa resistorka laftarkiisa ayaynu parallel kala dhigaynaa. That means parallel waxaynu kala dhigaynaa high resistance buu leeyahay. Haddii circuitka lagu xidho current-kii buu joojinaya. Laakiin marka parallel lagala dhigo wuxuu cabirayaa voltage-kii. Si kale haddaad u dhigto voltage waxaynu ku tilmaamnay mararka qaar waxaa la yidhahdaa potential difference. Potential difference-kuna waa farqiga u dhexeeya dhinaca balaaska iyo dhinaca minuska energy-gooda. Marka haddaad u fiirsato resistance-kan ama resistor-kan yar, dhinacan wuxuu kaga xidhaya balaaska bayteriga, dhinacanna wuxuu kaga xidhaya minuska bayteriga. Labadii cidhif ayaa voltmeterka lagu kala xidhaya si uu u cabiro voltage-kiisa ama potential difference-kiisa si uu u cabiro. Calculations. Okay, waxaanu soo aragnay ama conclusion-keenu wuxuu noqon karaa voltage waxa uu leeyahay energy ama work oo loo qaybiyay charge. Energy or work divided by charge. Marka haddaynu ku bedelno xarfo, voltage waa W divided by Q. W waa work, energy-na waad oran kartaa. Waa isku mid energy iyo work. Taasina waxay noo muujinaysaa the work in la mid tahay VQ. V waa W divided by Q implies that W equals V times Q. Waxaa kaloo aynu xasuusanahay Q inay la mid tahay IT. Haddaad markaa halkaa ay Q taalo IT ku bedesho, work waxay noqonaysaa VIT, taasoo ay V-du inoo tahay voltage, Q-na ay tahay charge, T-na ay tahay time, W-duna ay tahay energy ama work. Waa isku mid un. Horeba waynu usoo qaadanay work iyo voltage-ka ama the potential difference-ka xiriirka u dhexeeyo, iyadoo ah waxaanu soo qaadanay voltage-ku inuu work per unit charge. Okay, example. Waxa lagu yiri a current of 0.5 ampere is drawn from a 12-volt battery for 20 seconds. Current qiyaastiisu inta tahay baa laga soo saaray battery 12 volt ah muddo 20 second. Su'aashu waxa weeye how much charge is drawn in this time? Muddadan ama waqtigan charge intee leeg baa la soo saaray. Marka inaga waxa laga doonayaa Q. Marka dabcan mar haddii Q laga doonayo Q-na waxaanu ku helaynaa ama Q waxa lagu helaa IT. Hadda I-na waynu haysanaa, T-na waynu haysanaa. Wax kale uma baahna wixii qaacidadu ina amrayso baynu raacaynaa. Waxaan leenahay Q equal IT. Markaan ku bedelno I iyo T, kadibna labada la isku dhufto waxay noo soo baxaya 10 column. B waa isla su'aashii waxa la yiraahdaa how much energy in joules is given to each column of charge. Tamar intee leeg baa la siinayaa halkii column ee charge. Halkii column ee charge circuit-ka dhex maraya tamar intee leeg buu soo qaadaya. Haddii su'aasha la inoo weydiiyo la yiraahdo each column of charge energy intee leeg buu qaadanayaa, qodobka kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad soo qaadataa voltage-ku, waa inaad toos u tagtaa voltage-ka battery-ga. Voltage-ka battery-gu wuxuu ka turjumayaa energy-ga la siinayo halkii column ee charge. Sidaa daraadeed waxaanu garanaynaa 1 volt inay u dhiganto 1 joule per column. 1 volt inay u dhiganto 1 joule per column. Sidaa daraadeed waxaanu oran karnaa 12 voltna waxay u dhigantaa 12 joule per column. oo macnaheedu ay ka dhigan tahay 12 volt mar haday tahay 12 joule per column. That means energy 12 joule la siinaya halkii column. 12 joule of energy is given to each column of charge. Jawaabtaas ay noqonaysaa.
su-aasha sida waxa lagu yiri how much energy would be transferred to the circuit in 20 seconds energy intee lag baa loo gudbinayaa circuitka muddo 20 second way guud ahaan marka energy-ga loo gudbinayo muddadan 20 second markaad helayso energy-ga maxaynu u qori karnaa work baynu oran karnaa ama energy baad ku deyn kartaa waxa lagu helayaa energy-gu work unba u dhigantaa workna waa VQ V waa voltage waa 12 Q-na de waa charge-kii inoo soo baxaya waa 10 coulomb labadii waynu haysanaa markaad labadaas isku dhufato waa 120 joule haddaad qaacido kale isticmaasho odhanaysay work waxa lagu helaa VIT V waad haysaayo waa 12 I-na waad haysaa waa current-kii waa 0.1 T-na waad haysaa waa time-kii waa 20 second saddexdooda haddaad isku dhufato waa 120 joule markaa okay summary waxaanu tilmaamnay voltage waa energy per unit charge ama ha ahaado potential difference ama ha ahaado electromotive force isku wada duuduub waa voltage na waa energy per unit charge voltage waxa lagu helaa energy divided by charge unitku waa volt 1 volt wuxuu u dhigmaa 1 joule per coulomb voltage is measured by voltmeter voltage-kii voltmeter baa lagu cabirayaa voltmeter is connected across the circuit components voltmeter-ka waxa si across ama guduba loogu xidhayaa qaybaha circuit-ka almicna waxa parallel loola xidhayaa qaybaha circuit-ka voltage waa work per unit charge workna marka waa V times Q okay exercise waxa lagu yiri the PD across the lamp in figure 37.6 is 12 volt potential difference ka laambadaasi waa 12 volt how many joules of electrical energy are changed into light and heat imise joule electrical energy ayaa loo bedelayaa light iyo heat when marka a charge of 5 coulomb passes through it charge 5 coulomb uu dhex maro that means imise intee lego electrical energy loo bedelayaa light iyo heat marka lagu leeyahay intee lego energy la isticmaalaya energy baa laga doonaya ama work baa laga rabaa workna qaacidadeeda xasuuso waxa lagu helayaa ama waxay la mid ahayd V times Q laba qaacido mid waa VQ midna waa VIT bida marka la isticmaalo current 2 ampere ama marka current 2 ampere flows in it for 10 seconds oo laambada dhex maro muddo 10 second taasna markaad energy-ga raadinayso ama work waxa ku aboontay VIT su'aasha labaad a current of 2 ampere is drawn from 6 volt battery for 10 seconds current 2 ampere ayaa laga soo saaray battery 6 volt muddo 10 second how much charge is drawn in this time muddada charge intee leg baa la soo saaray B how much energy in joules is given to each coulomb of charge energy intee leg oo joule ahaan lagu cabiri karaa ayaa la siinaya halkii coulomb ee charge C how much energy has been transferred to the circuit in 10 seconds energy intee leg baa loo gudbinayay circuit-ka muddo 10 second gudaheeda